كبعد مركي أصلا حقوق بلا وراري أنا الدجال قالي يا أنا السيستم كي واسكت دربالني لا نقل القبائل سلام مبتدئ بشي شن بقول الشهشاه لبدا إنه نسيب لأنه عندنا مشغلين مبتدئ أيها الدجال ما قلنا إحنا ما قبلنا مبتدئ شن بقول الشهشاه أوكي مركي كلا عشرة جنانا كم فارق كوست أنا رسول أنا ليش منطقة أنا مقدش مال ولا منطقة أنا برتاسة أنا منطقة معها أنا واحد سرعيو كتاجة ولي بنت تجوري نيو غارغاس waxaan ka soo wadnay afguy waxaan dhignay barxadaha filad horteedaas meesha baabuurta lagu baakay maarta baakay ka dhinacaas hal baakanayo afguyan ma takracnay waxaan ugu tagnay ninka la yiraahdo qarre meel sabiib caano la yiraahdo الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا برامج كينا قنقر شاشة waxaa inoo saaran kabtan Shariif Maxamed Barkhad Laayaan leh waa 3 jir mudug ku dhashay militariga ayuu ku soo jiray ilaa dawladii madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan darajada xidigle ilaa kabtan ayuu ka helay madaxweynayaal Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariistee Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha hadda muddo xilidkiisii hore hadaba Shariif waa kuma isaga ayaa isqeexayo bismillahir rahmaanir rahiim waxaan ahay anigu Shariif Maxamed Barkhad waxaan ahay shakhsi ku dhashay gobolka mudug nin waxaan ahay dhalinyaranimadiisii ka soo tagay gobolka mudug 9 sano oo jira ka soo tagay xamar baan soo galay xamar baan iska dhex shaqaysanahay intaas waa ku soo noolaa ka bacdi waxba uga sii gudbay waxaan galay intaas markaan soo socday ka bacdi oo nololahaas yararka ka soo gudbay 2000 ciidamada galay waxaan ka qaatay darajadii koowaad 2006 aan xidigtii hore ka qaatay waa socday waa joogay waa shaqaynaa intaas anoo sarkaal ah 2010kii waxaan ka qaatay xidigtii labaad 2016kii waxaan qaatay kabtanka waan shaqaynayay intaas waa ku shaqaynayay nin iska shaqaysto sarkaalnimadiisa iyo ciidanimadiisa iyo wixii ku shaqaystaan ahaa xaas waan lahaa caruur waan lahaa deegaan buuxa waan ahaa caruurkii iyo xaaskii iyo waxay sidii igu buuxaan oo ay joogaan insha Allah ilaahay idankiis xaaladdu waxay soo socotay markii u dambeysay 2017 waxay nala soo gashay waxay socotaba xaaladahan hadda maanta meeshaan aan u fadhiyo way la soo gashay taliya urur ayuu soo noqday waa ururkee marka la magacaabo 2015 bishii lixaad in la magacaabo xasuustaa wala ayaan badan ahay walaa xil adiga bil ka bacdi Xasan Sheekh markii xilka laga qaaday waxa hayay 26 bariyan ka bacdi xilka ya ururkaas wuxuu joogay baldoogle iyo yaqbari weyne iyo joogay
ururka labaad la oran jiray guutada lixaad ururkeeda labaad. halkan waxaan rabaa inaan doc kale idinkaga furo oo xiriirka barnaamijka ila galay sargaal hore maxamed cabdulle abkow cumar biyamaalow weerar airbortka ka dhacay Maaj 23keedii 2020 ayaa loo xukumay 14 Diseembar 2020 waad xasuusataan. haddaba jeega iyo biyamaalow midna xilkii ayaa laga qaaday kan kalena waxa uu ka haray habka diiwaangelinta elektarooniga ciidamada oo ah database ama online. caradii ay ka qaadeen waxa ay la safteen argagixisada waxa xiriirka kooxda keenay dhamma Shariif Maxamed Barkhadle ayaan leh waxa uu helay xalana cali holac iyo dakhare maxamuud dangad oo ay qaraabo yihiin. waxa ay la gashay luuqan hadda ay hor fadhisin luuqan hadda qoraalka ka haysaan ay la soo gashay shabaab iyo xagees soo sheegay ya xagees soo sheegay xagees xagees ka heshana waa mahadsan tahay anaa raadiyey nin aan aqaana raadiyey waxaan ka daawareegana waa helay magaciisa naga ya magaciisa xalana la dhahaa xalana cali helo cali dhahaa waxaan ka daawareego waa helay calaa kulli xaal mid kale ugu sii xiro asna aan islaamno adeer oo balaayo meelahaas wareegaya ka bacdi kiina mid kale ugu xiriiriyey ya ha midka labaada daqare laba xidigle iyo kabtan ayaa mootofay koona u qaatay iyagoo u socdaalaya heshiis dhiigdaadin ah. laba iyagoo ah ayay ku kulmeen inta u dhaxaysa Afgooye iyo Sabiid iyo Caano leh. sidaas waxa weeye Afgooyaan mooto ka raacnay waxaan ugu tagnay ninka la yiraahdo Daqare meel Sabiib iyo Caano la yiraahdo aan ugu tagnay waa la soo shirnay waa soo kala tagnay nin buu nagu xiray oo waa nagu beesgarey calaa kulli xaal nin buu asagoo nin iska tagaya ma ogtahay nin buu nagu xiray marka aniga waxaa ila socdaa Biyamaalow maxaa Cabdulle Abkow Shariif Jeego iyo Maxamed Biyamaalow milatariga sumcad weyn ayay ku dhex lahaayeen sababta wax kala ma aha ee waxa lagu bartay haliyey shahiid General Cabdikariim Yuusuf Aadan Dhaga Badan abaanduulihii hore ee milatariga Allah u naxariiste. waagiisa horeba markuu ciidanka soo galay iyo markuu kaasa iyo 3 sano Dhaga Badan la shaqeynay iyo intii sarkaal uu noqonay iyo heer laba xidigle intuu gaaray waxa soo dhan isku joogaray ku saaxaneen rag tira badan ahayno isku barnaamijkan marka hore kuma aan wada jirin oo qof mataqaana naga mid ma ahayn al-shabaab la tusaar naga mid ma ahaynba ka bacdi markii asaguna xuquuq beelo wareeray anigana dagaal galay ya aan systemkii waa isku darbaalanay ilaa nicil qaba salaam waqti adig wax waran laga soo celino oo kale ku noqdo arintaas ku baxday waan isla garanay arintan inay wixii shaqaha la arka la qabto nimanna xaabo ma aha indhaadeg meesha la marayo haba waana halkaas waxba yaale mataqaana wadinkaas halkaas meesha heblah hadaa geey kartaan macna haddaan niraano ma geynayno waa ma geynayno ma geey karna haddaan niraano waa ma geey karno halkaas ma geey kartiin ma geey karno ma geey waa geynaynaa keen systemku saas u shaqeynayay inaan isweydiino ma xume maxay kula tahay inay ku badasheen balaayadaasi balaaya lacagaha qaadada ma leh lacagaha waan wari adiga lacagaha waxaan lagu heshiiyey bishii 500 shaah
labadeeda in la siiyo ilaa nooc cidna uma shaqeyno ma ogta adig ayaga dagaalna uma galno waxna uma qabanno ma ogta adig 500 oo shaashaha okay markii kale aan shaqo tagnana kun raana koosta in la siiyo ka socod January 14keedii 2019 qaraxii ugu horeeyay ayay ku soo baakimeen hotelka iyo maqaayadda isku raranka ee Village niyo gaarigaas waxaan ka soo wadnay afgoy waxaan dhignay barxadaha Village horteedaas meesha baabuurta lagu baakimay maarta باكي كدين عصا الباكي هذا أنا كتجن قارد ببشق دي سياريس هالكاسو كاسو بح intaan qaraxyada kale ay fulintooda lahaayeen kula aadin waxaan u baahanahay farsamada lagu keenan gaari qarax ka buuxo laakiin iskama waalin jeego annaga ayuu nagu soo celiyay jawaabta hal su'aal min su'aali kara انت مقليسين او قرح iyo hug iyo ham dhacaysi soo joogbanti barahayn kuwaas soo gudbeen ifaansiyo kuwaas soo gudbeen marka waxa uu leeyahay hadii baraha amniga shaqeyn lahaayeen meelaha muhiimka ah ee caasimada qarax ma iska imaan lahaa ma warsil arkaanayo joogbanti hadii sideeda ama wax lagu celinaa wax lagu celin karo xamar qarax ma ka dhicilaa أديك سوي حكي نمو شكمنت هدي بحلو بارها يا فيري شكمنت هدي بحلو بارها أما دولة نمو الله شغينا حمر صابئي حمر وين يقرح مسكين مالها ما يا حقل ضمننا أديك balwaay hay'adda cadays dheer kadib waa tan farsamada lagu keenay gaari qarax ka buuxo إدكار متقنين أديك إدكار قف كوتا قف إدكار وذننا wax uu gudbi karo ma jirto waa isla fahanay waxa uu sanasiiyay tusaale ama kaaga mana ku haysto inuu si faahfaahiyo maantaas malka noo ana tagay naga daawarkeeda kaliya wixii iga haray xagee ahayd lambar afar iga haray malayna abkow helaas iga haray February 4 2019 ayuu isticmaalay kaarkiisa waxa uu kaga gudbay Muqdisho Mall jagboontiga laga galo waana marka uu ku kaliyahay fulinta dhagar ay ku geeriyoon doonaan muwaadiniin inta la diiwaan galiyay tiradoodu ahayd 16 qof hal bir waaya sharcan waa leeyahay laakiin qof aan sharci lahayn ya qof aan sharci lahayn meel ma mari karto inta kale to waxa badanaaba aniga meesha ma taqaan Muqdisho ma la ma taqaan birtaas aanu ma taqaan aan wax sharciyo ka taaga waliga inta joogay ma xisaabsana inta aan liiska ugu jirin dawladda isla dhacdadaasi waxaa ku dhaawacmay 38 qofood ka badan waxaana musiibadaasi diiwaan gelisay kaamirada qarsoon ee amniga CCTV March 28keedii 2019 Maxamed Cabdulla Abko Umar Biyamaalow ayaa gaari qarax ah ku dhinac baakimay maqaaxida baar caga weyne ee Kisbilan restaurant waxay u dhowdahay hotel Wehliye Shariif Jeego ayaa ka sheekeynaya ogaalkiisa qaraxaas anigu iska socdaan ku yiri waxaan ka yimid xagga dekada ka yimid asaga marka soo wacay moogta waraa xagee joogtaan xaggaas dekada ka socdaa waxaan socdaa filim baadhay xaafadii sidii meesha dabka iga soo mar wada bajaaj ku halkaas ya bajaaj saaranaha markii aan iska sana moogta u galay moogta saas marka soo kala wareegay aan u jeedo asagoo gaari ka degaya isla markii waxa la sii soconana yaa aray sabab arrinkan haka gala kula adiga
هذا محاك هكذا مطال اللي هو يقول سقاط كوريم وحنا هذا عرفنا قد جيم يا كوريم هي ولا هي waxaa ku naf waayay 11 qof inta la xaqiijiyay 16 kalena waa ay ku dhaawacmeen 27 May 2019 xilliyada afurka camal waqtiga Muqdisho ayaa qarax ka dhacay argada Liido waxaa soo wada baakimay biyamaal iyo jeego kaas afgooyan ka soo يا أفقوا يا كسون سأسي سعني مال كلا ورار كلا ما أنا قلنا ملح لعن سأسي سعني ماشي شمال حاجة بعد ممكن مقايد على ضعفه مال نجحانة طالع لنا عداس طالع أفكار صار أنا كتب laba mar ayay qaraxyo dhex geeyeen Villa Baydhabo oo aan gawaari ahayn qaraxyadaas wala dhigaan ku meesha la iska dhigo meeshaas uu yaala ma taqaan marka meeshaas uu yaala tabeelaha sawir la markaas la hoostiisa laga soo qaaday guriga caanad irida laga gal darbigeeda meel gaari yaala qawaara أرسك هوسري دربي حتى ما يستشفينه وح أود يكون شيء بس حتى ما لهين دربي وح ما بلوكه أود يكون شيء فش أنت تري مال سانه كلو جيت طلع له هوسر صدله يجاري دحيد فش أنت تري مال الله دلالت وح أود ما لهين ما مدة ده يسي نيجي أشوف يسي أفداره أصلا عرّا سلقة مذا برمم أفضل شيء يسي كورل سلقة شيء حسب ورده ما بيش كعرّ متك لبعضنا وعمتك جرس بالي أصلا أنا شد جرس بالي كرك كذا كله هذا ما البالله هو سيسا أصلا نلقي بالله واحد نلقى على مدير مكتب بالله الله مركز له هوستيس إسلام إيش على دقة سجنة إسلام صاني أكتر بعد ندرب عانضوا على كل حال maadaama ay xarfaan iska ahaayeen kuna badasheen nolosha dadka $500 bishii iyo $1,000 oo ah fulinta dhagaraha guraacan haddana Shariif Jeego waxa uu nooga jawaabayaa haddii khawaarijta lafteeda uu ku dayay ama uu wax ka farsamaystay وابكم أديك أروى سألي سلام ما وصل سألي أنت وقابلنا سأل خلاص سكاء مركز سأل حيجي يوجد وشقينا وحال ومركز سوق هيد بسيا أديك فقراء كأركض دون الموجودة ومركز سوق هيد بسي وعلى رجال النوع عاصم إيش هسيله soo wado alaabta saaran meeshaas noogi qoryo waaya qoryo meeshiisa asagoo yaalan alaabtii fiirshay waa fiican yahay alaabta fiican tahay waa soo waday alaabtii aan kala baxay qoryo aan kala baxay حاضر صدح ذي قري كقعطي قارين ميلانك عدو وحي قد دوريقان تلفون قوقي قرر قاري قريها عاوي ماشا كنوري نوغي مركا أركان أنا قريو ماشا كسعون أي لأن قاريقا نكا سيولا أصدر سنة إنها نوغلي غير لفتيسا وابعد وحستا معلومة ولا شاشعية لفتيسا على كل على على نكاس نقول بقارقة hay-adda nabad sugidda waxay ogaatay in gafkaasi uu ka galay argagixisada uu ku badashay qarax 18 Diseembar 2020 ka dhacay Gaalkacyo anoo hataa ka tirsan 22aad galmudug anoo ka tirsan hal dooradii ku dhintay qaraxaasi waxaa ka mid ahaa
taliyihii qaybta 11aad jenaraal cabdicasiis cabdulaahi qoojo dagaare taliyihii ciidamada danab qaybta galmudug korneel mukhtaar cabdi aadan duqii hore ee degmada gaalkacyo qaybta puntland maxamuud yaasiin axmed tume qaraxa ayaa ka dhacay garoonka cabdulaahi ciise oo ay xilligaasi ka socotay qabanqaabada soo dhoweynta maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaarihii hore ee federaalka dembiyada uu galay shariif maxamed barkhadle ayaan lama yaro cadow axmed cabdulla carab oo xukunsana xabsiga dhexe ku jira ah ayuu ka iibiyey hub ay dowladdu leedahay 2 hoobiye iyo 40 xabadihiisa ah kiya aroora waxa ku haya qoryahaas ku haya noocaas iyo rasaastaas ku haya ana wacay ba carabkan had wallahi ma yahay ilaashi wala shiro waa kaasa niyo aniga hadda waa fogaha kowde ya waa xamara jira wiil oo walaalkay oo walaweyn jooga aan ku soo dirsanaa ya waa wixii walaweyn iyo meelahaas baldogle iga soo gala ii soo gada miya hay wixii qashinkiyo dhan wixii aan soo aruush meel oo walaweyn iyo u dhaxaysa mataqaanaa ee waladogle oo wadada geeskeedana aan bataqosi way lacagta soo dir ay lacagtii qayb adu si ii otay qaab daro ila galay waxa uu inooga jawaabayaa haddii ay jiraan farsamooyin kale oo ay kooxda argagixisada ku dhex gali karto saraakiisha shaqayso laba waxyaaloodba waa isu jireen dad ogta qaar wadnaha ka dhintaa jira moogta adiga qaar wadnaha ka dhintaa jira dadka oo la leeyahay meeshaasaa joogtaa haddii oo annaga afaarahayga faragashatidna ya wallahi adiga checkpointiga aad joogto waa ladin weynaa aan ahayn soomaan waxaaguna diyaar ya ana kala socoto bal waayahay sheekadiisa waa iska soo gabagabeynaynaa sidee ayuu ku soo gacan galay ayaad isweydiinaysaa waxaan maqli jiray gacantii qaadqaad barataa gumudkeeda dhaqdhaqaaqa isagaaba telefoonka ka wacay maxamed cabdulla nuur abkow biyamaalow kadib weerarkii airboortka 23 maaj 2022 asagaan waca biyamaalow laftiisaan waca ana waraa hoy nacala qarandumis ku dhalay ku yaala qarandumis ata qarandumis ku dhalay waxa dhacay wasaare waxa dhacay mana laga warqabina madaari gaal ku dhalay ninka airport shayaadiinta galiyo adiga markaas yiri xaar yaa aniga ma wallahi saari ay dhalata adiga gaasho ku dhashay wase haddeer ba ogow in adiga tahay okay asagina waa wax waalane ya gurigiisa iska saacdaba meel ma aadin albiina qof aad dambi gala carrab ogta adiga ogaada dambi gala carrab ma carrab gurigiisa saacdo dhab laga saayay waxa uu simkaarka badashaaba waxa uu dhuuntaaba waxa uu isku dhex qariyaa ciidanka waxa uu markii dambe xataa u xuubsiibtaa hoggaanka caafimaadka si aan loo fahmin waxa uu qortay xitaa fasax si aan loo helin ugu dambeyn hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa shartiisa ka qarisay dadka iyo dalka 19 Oktoobar 2022 7 January 2023 ayuu soo dhameystay habraacyadii maxkamadeed Kabtan Shariif Maxamed Barkhadle ayaan leh 12 January isla bisha sanadan 2023 ayaa lagu xukumay Shariif Maxamed Barkhadle ayaan leh dil toogasho inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena Gungaar tabin kale inta aynu ku kulmeyno waxaan idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh